بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدوميها كميل قاركا أي قولها الشعبكا اللي بانada شرفت له قدوميها كميل قاركا أي قولها الشعبكا اللي بانada شرفت له musharaxiinta guddoonka golaha shacabka guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka saxaafadda iyo dhammaan dadweynaha nagala socda warbaahinta dalka iyo dibaddaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudane guddoomiye mudane aliyo marwoohin xildhibaanada sharaftii oo qadarinta mudan waxaa sharaf ii ah anigoo ah xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe inaan idinla wadaago inaan ahay musharaxa u taagan qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya. sidoo kale waxaan hortiin u soo istaagay inaan idin weydiisto codkiina iyo kalsoonidiina iguna aamintaan mas-uuliyadda culus oo aan u qabanayo xildhibaanada sharafta leh ee dalkeena iyo dadkeena. mudane guddoomiye mudane aliyo marwooyin haddaan idinla wadaago aan wax idinka taabto taariikh nololeedkayga iyo khibradayda shaqo. aniga waxaan ku dhashay degmada xudur xarunka gobolka boqol 1956 bishii abriil. da'daydu waa iska qiyaasi kartiin, dadka da'da waa qarsadaan ma qarinahayo 65 sano waa dhameeyey. khibradayda shaqo haddaan wax idinka taabto horta aqoontayda haddaan wax idinka bilaabo intaan maaragtay aan dhexgelin khibradayda aniga takhasuskaygu wuxuu yahay culuumta islaamka gaar ahaan shareecada islaamka iyo culuum diraasaadka islaamka aan ka sameeyey. culuumtayda aniga waxay maaragtay ku saabsan tahay dhinaca shareecada islaamka iyo culuumta islaamka. waxaa iila jira 30 sano ku dhowaad oo waayo aragnimo ah sharci kasta iyo xeer kastoo dalka loo dejiyey aan goobjoog u ahaa. aqoontayda markaan soo koobo dhinacaasay u badan tahay dhinaca waxbarashadayda. waayo aragnimadayda shaqo mudane guddoomiye iyo mudanayaal xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan idinla soo siiyo intaan aniga qaranka u soo shaqeeyey ama xil dowladeed aan soo qabtay. 93 ilaa 95 waxaan noqday guddoomiyaha degmada xudur. 96 laga soo bilaabo waxaan ka mid ahaa odayaashii dalkeena midasha loo heli lahaa yaan ka mid ahaa. shirarka aan ka qayb galay waxaa ka mid ahaa shirkii soodare oo dadkii la rabay qaarkood imaan waayeen oo dawladda ugu dhawaaqi waayey oo urur la soo sameeyey in Soomaaliya la isu keeno lagu soo go'aansaday aan dawladda ugu dhoosin laakiin lagu go'aansaday in 4.5 wax lagu qaybsado. shirkii ku xigay wuxuu ahaa kii Jabuuti. shirkii Jabuuti adiga ma aadin saaxiibo aan isku tiim ahayn oo la yaqaano waad ogtihiin ma idinka qarsoona. aniga waxaan ku jiray markii Soomaalida kala burburtay oo cid kasta deegaankeedii tagtay ururkii RRA baan ka mid ahaa mas'uuliyiintiisa. marka saaxiibaday guddoomiye iga sareeyay iyo laba iga hooseysay ayo dad kale badan Jabuuti ka qayb galay waxaa liigu soo qoray xildhibaannimadii nasiib wanaag markii dambe duruufo jiri awgeed kama qayb galin xildhibaan ma noqon. markaas waxaa iigu xigtay shirkii Nairobi lagu qabtay Eldoret iyo Embakasi. waxaan soo noqday anigoo dib u heshiisintii dadkii aad ugu dadaalay ka mid ahaa iyo dowlad dhiska wasiirka cadaaladda
iyo garsoorka iyo xildhibaan ugu dambeyntii markii dambe aan dalka gudihii lagu soo noqday waxaa la ii doortay 31 January 2007 gudoomiyaha golaha shacabka halkaasaan qabtay waxaa igu xigtay 27 December 2008 waxaan qabtay aan ku darsaday xilkii gudoomiyenimada si dastuuri ah markuu iscasilay Allah u naxariista madaxweynaheeni hore marxuum Cabdullaahi Yuusuf hilkii uu baneeyay asiga iska casilay hilkii gudoomiyenimada igu daray waxaan noqday gudoomiyaha golaha baarlamaanka ahna madaxweynaha siihayaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ilaahay nagu guuleeyay markaas inaan isugu tagnay oo Djibouti dawladda ugu soo dhisay intaas kadib waxaan ahaa markii dawladda la dhisay uu ku guuleystay dawladdii Shariif Sheekh Axmed waxaan ahaa xildhibaan gudoomiyihii golaha shacabka waxaana lagu guuleystay oo ilaahay nagu manaystay inaan ku ceeboweyn markuu madaxweynaha iscasilay shaki waxa yimid ama dalkii burbura aniga oo runtii la kaashanayay xildhibaanadii sharafta lahaa baarlamaanka iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo waxgaradka waxaan ku hogaamiyay labadii tiimkii mucaaradka midowgii maxaakiimta iyo dawladda ku-meel gaarka inaan isugu geyno Djibouti walaalkeen Ismaaciil Umar Geele khayr Allah hasiya iyo dadkiisa dhammaan reer Djibouti walaalaheen goobisha noo fidiyeen inaan ku midowno dawlad ku soo dhisano ilaahay ii soo guuleeyay halkiina markaas ku wareejiyay madaxweynihii la doortay Shariif Sheekh Axmed waxaan hogaamintooda bilaaway 275 horay u jirtay ilaa 275 oo lagu daray oo hataa xeerka ay soo mareen xeer taageerayaashooda is dileen hataa soo maray yaan waxaan isugu geynay hal hool waana midoobeen dawlad sharaf baarlamaan sharaf leh oo ummadii Soomaaliyeed metelo oo aan isdagaaleen iyay noqdeen ilaah baa nagu ceebasturay saasa dalka uu soo noqonay markaan nimid meesha hadda lagu shiro xarunta golaha ummadda oo burbursan oo wixii dhinto baqti beelaad ku dhinto iyo lagu jiido oo mas'uul ahaan loo isticmaalo ayaan waxaan sameynay gudoomiyihii aniga oo gudoomiyihii baarlamaanka sideedad iyo xildhibaanadayda waxaan sameynay inaan meeshii dhisno dayactirno nadiifino xildhibaanadayda waa joogan mid ilaa hadda lagu shiro ama ilaa hadda noo socdo waay isla markaas waxaan soo codsaday dawladda walaalaheen Turki yaan aaday waxaan ka codsaday in meesha la noo dhiso waan naga soo ogolaatay barnaamijkaas wili sidii la rabay looma fulinin rajigiisana ma xuma ilaana inta ba iga noo dhisay wadogtii taas xaalaha kale aan ilaahay u makeenay ku soo guuleystay intaan xilka ahaa waxa kamid ah inaan shuruuc badan oo waqti cariiri duruufo jirta aan soo hirgelinay aan soo milmarinay oo tii aan afjarnay barbuqaandadii dawladeen lagu barbuqaamay oo la dhihi jiray waa almaaniyiin nama lagu barbuqaam jireen waan u fadhiisinay shariicada islaamka in dalka lagu dhaqan go'aaminay kamid ah ee qodob badan oo ogtihiin shariga shaqaalaha rayidka kamid aha tii badroolka kamid aha tii ciidamada kamid aha yaani ma soo koobi karo xaqiiqdii ayadoo duruuf adag jirto aan baarlamaanka kuna haysanin intaas kadib waxaan rabaa mudane gudoomiye mudane Ali Marweyne labaanada sharafta leh guulahaas lama soo koobi karo ilaah baa noo soo makaniyay maanta midaan lagu soo gaari waay waxaan rabaa inaan idin sheego haddii ilaahay igu guuleeyo oo aad codkiin isiisaan oo aad doorataan waxyaalaha aan damacsanahay waad ogtihiin xilka in lagula maago inaad codsatid waxa caadiyan badan in lagula maago laakiin waxaa jirta duruuf hadday jirto waxaa daliil u ah Nabi Yuusuf alayhi salaam wuxuu yiri markii boqorkii maxadiyay oo la heshiiyay oo aniga ila shaqeynaysa uu yiri dawladdiis oo dhabaataysan wuxuu yiri ij'alni ala ghazaa'in al-ard inni alimun hafiidun walaalayaal waxaan idin leeyahay labaanada sharafta leh aniga inaan maanta u soo istaago waxaan is leeyahay duruufta maanta jirta inaan wax ka qaban karo waxyaalaha aan maaragtay soo istaagay kamid tahay sababta oo ah baarlamaankeeni ugu dambeeyay hadda duruufii jiriyaan ogahay marka arrimaha aan ku talagalkay waxaa ka mid ah sareenta sharciga iyo ku dhaqankiisa waa qodob ii taagan si loo helo baarlamaan haybad leh shuruucdiisa madax bannaan u fulin karo si loo helo waxaa kale muhiimadda koowaad aan siin doonaa
xallin ilaalinta madaxa bannaanida golaha shacabka mudan yahay marweyne labaadana sharafta leh waxaad ogtihiin baarlamaankeeni tobanaad waa soo dadaalay laakiin xadgudbi aan caadi ahayn ayaa lagu sameeyey waxaad ogtihiin guddigeeni maaliyadda markii xisaabtan ay la galeen hay-adihii qaabilsanaa maaliyadda guddigii in habeen madow la kala diray guddoomiyahooda cararay alaana dibadda ku magan yahay baad ogtihiin xaqiiqdii waxa baarlamaan looga adkaysan kara maaha in xildhibaanka codkiisa ama loo jujuubo ama loo handado oo dalka ugu cararo waxaan ogolaan darna maaha hadduu ilaahay yidhahdo aniga ilaahayna guuleeyo mudan yaal iyo marweyn mudan xildhibaanada sharafta leh waxaan kale haddii aad i doorataan codkiisa siisaan aan xoogga saari doonaa idinkoo idinkala tashanaayo horumarinta xiriirka golaha shacabka golaha aqalka sare iyo golayaasha dowlad goboleedyada ee xubnaha dowladda federaalka si aan u noqono dal degan oo isku wada xidhan u noqono hadduu ilaahay igu guuleeyo oo aad codkiin isiisaan waxaan kale maaragtay aan xoogga saari doonaa hirgelinta dhismaha xarunta weyn ee golaha shacabka muddo kooban maadaama waqtigaas aan codsanay caalamkana diyaarno ahaa inuuna caawiyo la fulin waayo inaan fuliyo oo aan idinku hogaamiyo ayaan ku dadaali doonaa haddii aan leenno sidoo kale waxaan ku dadaali doonaa dhismaha guddiga adeega baarlamaanka oo weligii la dhisin si xuquuqda baarlamaanka meel loo saaro guddi madax bannaan oo waajibkiisa in loo helo ayadoo guddiyadii kale caadiga ahaana sidooda loo dhisi doono oo ay guddigaasi noqon doonaan guddiyadaas guddiga howlaha baarlamaanka fuliya si dastuuri ah hay-adaha dastuuriga la xisaabtamo kor joogtayo waajibaadkiis guto asigoo cidna ka baqaynin asigan ujeedadiisa ahay inuu ku xadgudbo laakiin waajibaadkii loo idmaday fulinayo haddii aan la idmo mudan guddoomiye mudan yaaliye marwooyin waxaan hadduu ilaahay yidhaahdo aan xoojin doonaa oo idinku hogaamin doonaa xiriirka baarlamaanada caalamka waxaad ogtihiin baarlamaankii sideedaad oo aan sheegahay oo dhaqaalo qaadanaynin dhammaan baarlamaanada caalamka hubaan ka noqonay waagaasaa la dhisay iyo ilaahay nugu guuleeyey kulli waa jiraan baarlamadii caalamka dhan xubinteen waa ka bannaan tahay taasna waa sii xoojin doonaa insha allah waxaan kala dhiirigeli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo aan codkiin isiisaan oo aan codkiin aad isiisaan waxaan kala dhiirigelin aan u samayn doonaa oo si maaragtay mug leh aan ugu dadaali doonaa wada xaajoodkii istaagay walaalaheena Soomaaliland si aan u gaarno xeer aan dastuurkeena afti u qaadi karno maadaama intii Soomaaliya ay muhiim ka maqan tahay dastuur qaadista aan lagu toosi karin si aan walaalaheena aan ugu qancino dhibaatooyinkii ay tirsanayeen si wada xaajood walaaltinimo aan ugu galno midnimo Soomaaliyeedna loo helo waxaan xoojin doonaa xukuumadda ku korjeegdan doonaa arintaasi xalaalnimo oo daacadnimo in wada xaajoodkaas loo furo wadagtum koob mudan yahay marweyne labaanada sharafta leh hadaadi doorataan waxaan hubinta iyo hagista hubin iyo hagis ku samayn doonaa doorasho axsaab ah oo si xur ah dadka loo doorto qofii cod la gaarsiiyo dalka ayada oo maaragtay weliba tarakoob laga horumarin doono haddii aan la idmo oo dalkeeni ammaankiis u sugmo intaan hadda xilka haynin waxaan rajaynayaa in arrintaas ilaahay nagu guuleeyo mudane guddoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaan aaminsanahay haddaad i doorataan codkiina isiisaan inaan isbeddel la taaban karo baarlamaanka Soomaaliyeed aan ka keeni doono oo aan heli doono kalsoonida shacabweynihiina soo doortay oo maanta yacni moraal xumo ku dhacday oo heer iyo ka shakiyaan ama matalaadii waajibkana saarnaa in aan ka gaabinay aaminsan inaan wax ka beddelno hadduu ilaahay yidhaahdo aad i doortaan qodobkaas xoog aan saari doonaa waxaan kale maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo aan u howlgali doonaa oo aan baarlamaanka federaalka ku hogaami doono haddaad i doortaan codkiisa siisaan maqaamka caasimadda Soomaaliya
oo dhibaato badan ka taagan tahay oo muddo badanna sidii saa u taagnaayay waxaan rajaynayaa in ilaahay nagu golin doono aniguna dadaal aan caadi ama ku bi doono haddii alla idmo insha allah xildhibaanada sharafta leh waxaa la yidhi anugu maamaha baa jirtaa af maay ah markii aad walfadaas ma obsato mid waa la koofada la obsay marka adiga waxaad doonaysid cabsanin laakiin markii wax lagaa doonayo markaasaa lagaaba inaad cabsatid xishootid maanta aniga waxaa hortiin u taaganahay inaan idin weydiisto codkiina waxaan idinka ballan qaadayaa haddaad i doorataan ma noqon doono hadduu ilaahay yidhaahdo guddoomiye intuu iska tago madaxda kale asiga istiis wax uga raadsada ma noqon doono hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan kale baarlamaanka ka ilaalin doonaa oo aan u howlgali doona aniga oo baarlamaan weynaha golaha shacbiga aan la kaashin doono xildhibaanadeen inay ka maarmaan in ay shahaad u doontaan hay-ad kale oo ay noqdaan nolol isku dheelitiran inay helaan waxaan kale hadduu ilaahay yidhaahdo haddaad i doortaano codkiin isiisaan aan u howlgali doonaa baarlamaanka macahid in loo sameeyo oo aqoon kororsi ah xubnaha baarlamaanka iyo howlwadeennada baarlamaanka dhammaantooda aqoon kororsi maaragtay duruus joogta u noqoto yaan samayn doonaa waxaan dhisi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo xarunta markaan dhisno in waxyar waxaan gaarsi doonaa haddaad codkii isidaad i doorataan xubin kasta baarlamaanka inuu xafiis helo sida adduunyada baarlamaanada u shaqeeyaan hadda mudan yaaliyo marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan kalen rabaa dhaqankeennii inaan ku salayno siduu diinta ilaahayna farayso oo anigu hogaamiyaha ah waajibaadkaas koow aan bilaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu rasuulkiisa maamulka barayay wuxuu yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlika facafu canhum washaawirhum fi lamri arrintaas markaan soo koobo inta badan waa taqaaniin rasuulku waxaa lagu ammaanay يعني naxariista ilaahay ku siiyey u jilcsanaantaada dadka aad kula shaqaynaayo haddii aan lahayn oo aad fadlan qaliidaal qalbi qof ilifsano qalb adag aad ahaan lahayd dadku waa kaa kala cariri lahaay baa layidhi marka waxaan lagula taliyay haddana washaawirhum fi lamri ayaa layidhi la shoor wixii waxay ahayn rasuulku waxaa la faray inuu dadka kala shooro walaalayaal xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa haddii aan guddoomiye doorataan dabeecad ilifsanaan adiga kala artaan igala kulmaysin waa koow arrimaha dastuuriga ah oo dalka u baahan yahayna wada tashi baan ka wada yeelan doonaa guddiyo xoog badan oo barnaamijka soo dhan dhiro ayaan dhisi doonaa haddii aan la idmo guddiga adeer garsoorka xuquuqda waajibaadka dastuurka dhan isku soo dubridaan diyaari doonaa go'aamada idinka si dhab u sheegteen oo been laga sheegaynin tiridiina been kama sheegi doono haddaad boqoltiin boqol fadhiyaan sanaya haddii boqolii konton fadhiyan dhahaya ma idin dhahayo idinka oo fadhiinin been idinka saa dastuur ma idinku noqonayo waxaan sameynaa idinku haddaad rabtiin waa tarsanaysiin haddaad ka shakiysaan kow laba guddoomiye dadka waxba dhamna ay leedihiin tirada ma dhama xaga ay leedihiin waa qodob heer hoosaadka ogol yahay in baarlamaanka markaad shakiyso la tariyo sharafta baarlamaanka waxaan rabaa in heybadii uu lahaa sharafka baarlamaankeeni inay soo noqoto xeer waxaan gaarnay daraada ugu dambeysay markii arrimihii qaladaadka aan sameynay dadkii rabitaankooda ka tambadiyay baarlamaanka u soo jeediyeen annagiina jacdhihi weynay ku raacnay oo meeshii lagu fadeexoway xeer waxaan gaarnay xildhibaan muxuu yahay in lana yidhaahdo waad ogtihiin ilaahay hadduu yidhaahdo haddaad guddoomiye hortaan xildhibaan muxuu yahay idinma dhahayo waan idinka hibaysan doonaa baarlamaan sharafeed noqon doontaan haddii aan leedno golaha shacbiga waxay la mid yihiin ummaddii Soomaaliyeed dhammaanteed inta la soo fadhiisay aad la mid yihiin sharaftii ummadda Soomaaliyeed dushiina saaran marka anagu oo sharaftaas sidino inaan waxyaalo qaarkood aan ku fududaano amba dhaqaale maartay jidka naga leehiyo amba maartay waxyaalo kale oo qaldaada amba rabitaan shakhsi aan ku lugno walaalayaal hadduu ilaahay doorataan waa iska ilaalin doonaa insha Allah waxaad ogaatiin baabuur waxaa la yiri haddii jidka ka leehdo asigoo orday oo maartay duurka laamaga ka dego inuu guddoomo dadku ku dhamaado badan yahay dawlad haddii sharciga ka leexato inay burburtaa u dhowdahay ogaada
hadduu ilaahay yidhaahdo baarlamaankan hogaaminayo sharcigu ku dhaqmaya sharciga kama leexayna duurka jeex ma mari doono haddii aan leedmo insha allah badan yaali marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan mar labaad tii aan sheegay oo aan u uskanay daliilkii nabi yuusuf inni aj'alni ila khazaa'in al-ard inni xafiidun caliim buu yiri wuxuu yiri aniga aamin waan ahay dhaqaalahan waa aqaana boqorow haddaad wax ii dhiibaysa taas ii dhiib buu yiri hadda waxaan idin ka codsanayaa mar labaad baarlamaan maamulkiisana waa aqaanaa niisaman waa igu jirtaa qarannimadana waa jecelahay 25 sano u soo taagnaa in qaran Soomaaliyeed u dhismo waxaan idin ka codsanayaa inaad codkiina iigu deegtaan si anaguna maadaama aan aqoontaas aan leeyahay waa yaran lahay niisaman igu jirto aan isleeyahay dalkan isbedel la taaban kara baarlamaanka hogaaminaysa ka keeni doona maadaama aan aaminsanahay codkiina inaad u siisaan waad ogtihiin waqti khatar lagu jira tijaabo lay wiligeena kuma jiri karno walaalayaal intaasaan ka codsanayaa waxaan rajaynayaa inaad i dooran doontiin si aan maaragtay si aan u noqono baarlamaan sharaf leh oo saas ah marka runtii wark waa ku dheeraday qofka ma ogtahay markuu wax rabo waxa laga yaabaa hadal isku toosanayna taan iska yiraahdo marka haddii wax iga galdiin raali iga ahaada waxaan ku soo gunaanadayaa halgeena wuxuu yahay baarlamaan xur ah rabitaanka shacabka ku shaqeynayo danta shacabka fulinayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh